dhinaca kalena dadka shacabka Ciraaq ayaa maanta oo Isniin ah codkooda ka dhiibanaya doorashada golaha deegaanka ee ugu horeysay muddo 10 sano ah iyadoo isbahaysiga Shiicada ah ee talada haya ay u badan tahay inuu guul ka gaaro inkastoo doorashada qaadacay wadaadka caanka ah ee Shiicada Ciraaq waa Muqtada Sadr oo ah mucaaradka ugu weyn ee isbahaysiga talada haya wariyeen Xuseen Barre Aadan ayaa faafahinta warbixintan inoo haya codbixintan ayaa waxaa loo arkaa in ay tijaabo u tahay dimuqraadiyadda da'da yar ee Ciraaq taasoo hirgeliyay Mareykanku kadib markii la riday Saddam Hussein 2003 doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa hordhac u ah doorashada baarlamaanka oo qorshaysan sanadka dambe ee 2025 doorashadaasi oo go'aamin doonta dheelitirka awoodda Ciraaq iyadoo oo sanadihii u dambeeyay kooxaha xiriirka la leh Iiraan ay ku guuleysteen in ay la wareegaan siyaasadii iyo dhaqaalihii dalkaasi danay la'aanta codbixiyayaasha ayaa ku soo badanaysa dhalinyarada oo iyagu u badan shacabka waddanka Ciraaq kuwaasi oo dareemaya in aanay arkin faa'iidada shidaalka tirada badan ee Ciraaq taasi oo inteeda badan si khaldan loo isticmaalo ama loo xado iyadoo Ciraaq ay ku jirto liiska wadamada ugu musuqmaasuqa badan adduunka mas'uuliyiinta sarsare ayaa ku baaqay in si weyn la isugu soo baxo kadib markii ay codkooda ka dhiibteen xarun loo diyaariyay madaxda sare oo ku taala hool qurxoon oo ku yaal mid ka mid ah hoteelada ugu wanaagsan Baghdad in ka badan 16 milyan oo Ciraaqiyiin ah ayaa isu diiwaangeliyay inay codeeyaan Isniinta maanta tiradan ayaa ka yar tiradii codbixiyayaasha isdiiwaangeliyay codbixintii baarlamaanka ee 2021 markaasi oo ay mas'uuliyiintu sheegeen in 22 milyan oo qof ay isdiiwaangeliyeen dadka u soo baxay doorashadii sanadkaasi 2021 ayaa lagu qiyaasay inay ahaayeen boqolkiiba 41 dadka xaqa u leh inay codeeyaan doorashada deegaanka ee 2013 ayaa ugu dambeysay doorasho deegaan oo la qabto waxaana dib loo dhigay dhowr mar sababo la xiriira dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda Daesh ee qabsatay qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq balse ugu dambeyntii laga guuleystay ammaanka dalka ayaa si tartiib ah u soo hagaagayay wixii intaa ka dambeeyay waxaana dareenka dadweynuhu uu u wareegay hoos u dhac ku yimid adeegyada dawladda shaqo la'aan baahsan iyo musuqmaasuq badan arrimaha xudunta u ah dibadbaxyada ballaaran ee 2019 oo ay ciidamada ammaanku si adag u caburiyeen waxaa ka mid ahaa arrimaha musuqmaasuqa